السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Gari Global Network. maanta waxaan idin haynaa warbixin ku saabsan abaarta ku habsatay gobolka Daawa iyo fariin ku socota dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia. warbixintuna waxaa noo diyaariyay Baganaale iyo Mudane Maxamed Nuur. warbixintuna waa sidatan dhageysi wacan. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب ورنغا سو غاري قبل كداوة اسمامنا كصوماليدا إثيوبيا وحو شيغيا إن قبل كداوة أبار آدو بأنا يكودو فتي أبار تاسو قبل كاسي هيسي كودو سند أبار تاسي رنتي وحي سامين وين أما ماركتي أبا سبا أن سامين وين أكو يلتي saddex degmo oo degmooyinka ka mid ah gobolka Daawa. degmooyinkaasina waxaa la kala yiraahdaa degmada Uudad, degmada Khadaduma iyo degmada Mooyaale. abaartaasi haddii sida ay ku socoto waxaa laga cabsi qabaa in xoolo badan ay ku baabaan, nafta bani aadamna ay ku baaba'i doonto. runtii abaartaasi haddaan wax gargaar lala soo gaarin ummadaasi si degdega waxaana loo malaynayaa inay maaragtay naf bani aadam iyo xoolo badan halkaasi ay ku dhammaan doonaan. marka dowladda dhexe ama kililka shanaad waxaanu ka codsanaynaa in ummadaasi si degdega oo gargaar lala soo gaaro. haddaan gargaar si degdega lala soo gaarin abaartaasina ay saa ku socoto ummadaasi waxaa loo malaynayaa inay naf bani aadam iyo xoolo badan oo hore u leeday haddana ay baaba'i doonaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. wabillahi tawfiiq. magacaygana waa Baganaale. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وادكم أحسنتين Gari Global Network. arrimahan ku saabsan abaarta gobolka ka taagan ama geeska Afrika dhan abaarta laga cabaadahaya. marka dhibaato culus baa ka jirta gobolkeega, khaasatan gobolka Daawa. dad iyo dunya ma noolo. marka cid la socota dad badan baan soo wacay, in badan baan sawiradood aragnay. dadkii wadankii way ka xayaameen, way ka guureen, way ka qaxeen. wax dhinacaan iyo Kenya u soo qaxo oo hunguri iyo nolol soo raasada iyo wax gobolooyinka kale u kacay noqdeen. dhibaato culus baa wadanka ka taagan. xoolihii way dhamaadeen. hadee dadkan xoolaha ku noolaayeen, hadee xoolihii dhamaadeen marka inta lagu noolana runtii aad bay u adag tahay. abaar dad iyo dunyo saameysay halka ka jirto. xaalad bini'aadanimo halka ka jiro. marka dowladda kilka dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia madaxdeeda waxaan ka codsanaynaa inay si degdeg ah ummadda u soo gaaraan, inay si degdeg ah gacan naxariisa ka soo gaarsiiyaan dadka gobolka u dhashana. waxaan leenahay xilligan waa xilligii lidin baahanaa. xoolihii dadkii waxaa weeyaan khatar bay ku sugan yihiin. xoolo ma noolo. dadkii waa xayaameen. hadee dadkii Soomaalida oo dhan baa reer guuraaska ahaa. maaragtay nin walbana xoolahaas ku tiirsan yahay. hadee xoolihii baxeen dadkii waxaa weeyaan nolol kale u hartay ma jirto. marka gobolka Daawa khaasatan waxa weligood soo marin baa hadda soo maray. imtixaan baa halka yaalo. marka ha loo gurmadaan leenahay insha Allahu tacaala. dowladda federaalka Ethiopia, xafiiska Prime Ministerka Ethiopia, dowladda wasiirka maaragtay musiibooyinka waxaan ka baryaynaa ama ka codsanaynaa inuu si degdeg ah ummadan baad iyo nolol la soo gaaro. biyo malaha wax la ka baday ma jiraan. xoolihii baad iyo waxay ku nool yihiin ma jiraan. marka ummadii madax meesha u ahaydna wax ka hadlaya maan arag, laakiin wax damiirka ay qaadan waayay baa halka ka muuqdo. sawiraha arkaysaan sawir la yaab leh. sawir halka laga soo diraayo waxaa sawir maaragtay naxdin badan. bal fiiriya abaar neef geela fariisasay maxaad ka sugaysaa? marka waxaa weeyaan meesha waxaa weeyaan nolol ma jirto waa lagu baaba'ay. marka dowladda kililka iyo dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa inay si degdeg ah ummadda u soo gaaraan. hay-adaha bini'aadanka gargaara sida UN-ka inay dadyowga ku nool gobolka Daawa si degdegsiimaha wax ula soo gaaraan. xoolihii way dhamaadeen, wax gacan lagu hayo ma jiraan. abaar daba dheeraata halka ka jirto, macluul ba halka ka jirto, xaalad bini'aadan ba halka ka jirto. runtii in indhaha laga eegto ma ahaane in loo gurmado weeyaan. gurmad bay u baahan yihiin dadkaasi. dadka qaar way hayaameen oo ilaa iyo xuduudda Kenya ka gudbeen. marka dhibaato bini'aadan ba halka ka taagan, ha laga soo gaaro. sawirada dhulkii ka yimid qalbigay dhaqaajiyeen. waxaa dhacay abaar ba'an. sawirada dhulkii ka yimid qalbigay dhaqaajiyeen. qolihii
xolihii dhammaada dadkii baa dhimanaye wixii dhigla oo kacaa xolihii dhammaada dadkii baa dhimanaye wixii dhigla oo kacaa eudib awooda eudib awooda haysdigan la sugayo waxaa dhimanayaa hoy dhiigaagii wey haysdigan la sugayo waxaa dhimanayaa hoy dhiigaagii wey eudib awooda eudib awooda haysdigan la sugayo waxaa dhimanayaa hoy dhiigaagii wey haysdigan la sugayo waxaa dhimanayaa hoy dhiigaagii wey dadkii baa dhimanaye wixii dhigla oo kacaa xolihii dhammaada dadkii baa dhimanaye wixii dhigla oo kacaa eudib awooda eudib awooda haysdigan la sugayo waxaa dhimanayaa hoy dhiigaagii wey haysdigan la sugayo waxaa dhimanayaa hoy dhiigaagii wey eudib awooda eudib awooda haysdigan la sugayo waxaa dhimanayaa hoy dhiigaagii wey haysdi sugayo waxaa dhimanayaa hoy dhiigaagii wey ودريران بعدكي تقلبي هرادي ودفتين بعده ودريران بعدكي تقلبي هرادي ودفتين بعده ودي بتدنودي هالكلو تمايو آخر وحسيديكو وديبات دنيدي هالكلو دمائيو آخر وحسيديكو اوديب أودا اوديب أودا haysdigan la sugayo waxaa dhimanayaa hoy dhiigaagii wey haysdigan la sugayo waxaa dhimanayaa hoy dhiigaagii wey eudib awooda eudib awooda haysdigan la sugayo waxaa dhimanayaa hoy dhiigaagii wey haysdigan la sugayo waxaa dhimanayaa hoy